وفد وسوغاميو وزيرka awqaafta iyo diinta dawlad goboleedka koonfur galbeed wasiir Saalax Shariif wafdigaas oo aan naftirkay markaasay kala jaray wasiirka qayb ku hay yaa degmada weejid yaa meel raayis hadeerni oo wasiirkana markaas wafdigu soo gaamiyay qaybna ku haayeen walaalaha Turkiga hay'adaha walaalaha Turkiga oo muxsiniinta oo muslimiinta caawiyo gaar ahaan Soomaali caawiyo qayb ku haayeen iyo waybaha ka dhawaynay degmada weejid garoonka degmada weejid alxamdulillah si wanaagsan meel raayis yaana bulshada weynta degmada weejidna han dhawaayeen wayba lana bulshooyinta hadhawaaytay oo degmada weejid qaybasha shalduun oo ururada bulshada maadaama soo dhaweyn diirin iyo Soobiyan oo kala ilaabiyo dawladda jeelin iyo handhawaayeen markasta wayba lana ilaa hiraabtiin surnaayeen marka hore iidan waasantin marka xigta wayba kalana wasiir adiga wafdiga hada hogaamiya sabab degmada weejid ha ka dhawaado weejid wayba qayb kumid ah gobolka Boqol qayb kumid ah degmooyinka kumid ah koonfur galbeed oo sanadadan dambeena go'doonka jaray oo dadkan meel raayis nimankan cadawga oo banaanka roogan ka hareeraysanayeen oo go'doomiyeen degmaha tan asaasatay oo saasan go'doonsan dhibaatadaas iyo xaaladaasna ka jara run ahaantii dawlad jeel wayba kalana wasiir adiga wafdiga ka dhawaada xukuumad ee wafdiga wasiirka la socdo oo usuun warbaahinta la hadlayso sheegay ini ahmiyadan koreyto saaro doonaan dadka masaakiinta anta badan tabalaysan. Selamünaleyküm. Burada Somali'de Vacit şehrindeyiz. Bu şehir kısa bir süre önce, yani birkaç yıl önce bu terör örgütlerinin kontrolündeymiş. Şu anda şehrin içi güvenli, çok şükür. Fakat şehre gelecek olan işte gıdalar ve diğer ihtiyaç malzemeleri bu terör örgütleri tarafından bir abluka, yolların işte kesilmesi, bunların bir şekilde engellenmesi yoluyla burada böyle bir sıkıntı yaşıyorlar. Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Koonfur Galbeed Mudane Saalax Shariif Siidkey oo sheegay in bulshada reer weejid iyo jeerin dawladnimada usan oo maxdari bulshada reer weejid geeko aata maalin khamiisa siyeedka billa toddobaad 2021 may la raay wafda aan hogaamiyo oo may la raay bileeran safarka ka deernay degmada waajid gobolka Boqol alxamdulillah ilaahay ma hadla wafdigaas oo kuma taayeen gudoomiyaha degmada waajid iyo dad may la raay walaalnimo Turkiga oo muxsiniin oo ansheegni intii degmada waajid culeysada haysto dhibaatooyinka qayb badan may la raay kula qayb qaadano marna ku farxiina insha Allah ilaahay ka mahadsan oo safarkan in soo gali insha Allah safarkan may rajeeyna hadii la heera weejid inta ka kordhi wal badan oo wanaag oo horumar mashaariic badan oo gargaar ama kala horumar may la raay lan qabad hay waajid hadii la heera insha Allah safarkan inta roogna may rajeeynaha intii reer waajid agoon tacaawina dadka jiista dadka masaakiinta may la raay dhinacyo badan ku caawina dhar aan gadna masaakiin marna agoonta dadka masaakiinta kaamanka noolano may la raay magaalada marna ka nool ama kaamanteeda ka nool raashin siina may la raay xoolo oo aduuda siiyo may la raay gacantiyo an ka shaqaysadan intii aan abuurna oo xoolo marna aduuda aan gadna qoys marna dhowr qoys oo may la raay insha Allah waan waqtiga dambe hasi baldan ee doon rajeeyana markan weejidun wada ogdin may la raay degma oo culeys badan saarin way oo go'doon ka jarta oo raashin toosan in galahayna markan qof walba muslim muxsin may ku codsadaanaha inta degmada weejid iyo degmooyinka lamad ilgoona lan la hada safarkan in koreey oo may la raay bay dhow banaajo oo qoyna هذا كهر ما اللي رأي لهن ينسور جريسد أو كله حضر أنتوا جرمة سمينا إن شاء الله كنا ما يرجعناها جرمة كي حضر كقبليرن أنتوا نقد الضانة عبد العزيز أكتر وربعين دولة قبلات كونفور قلبت تجمد ويجد جوال كبكال